بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، waxaan ku soo jirnay kitaabkii minhaajka ee uu qoray imaamu nawowi raxmatullaahi tacaala calayhi ee fiqiga islaamiga. waxaan ka soo hadlaynay rubicii u dambeeyey oo la yidhaah jinaayaad ama jiraaxo ayaan ka soo hadlaynay, gaar ahaan xuduudda. cashirkeennu maanta wuxuu ku saabsan yahay waxaa la yidhaha qaadicu dariiq, kuwa waddada istaagee dadka xoolaha ka qaata iyo xadda laga oofinayo ayaan ka hadlaynaa. qaadicu dariiq waxaa loogu magacaabay dadka ayay u diidayaan waddada si nabadgelyo ah inuu ku maro, oo ama xoolay ka qaadanayaan ama naftiisay dilayaan ama way cabsi gelinayaan iyagoo cuskanaya awood, dadkuna wax gargaara ayna haysanin. marka waxaa u asala qur-aanka, gaar ahaan aayadda suuratulmaa-ida ee caanka ee ilaahay uu ku yidhi innamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha wa rasuulah. aayadda ayaa u daliila. fuqahada iyo mufasiriinta intooda badan waxay ku fasireen inay kusoo degtay qaadicu dariiq, maxaa yeelay xagga dambe waxaa laga yidhi ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim, kuwa toobad keenaya intaydan qabanin mooyeen. marka gaalada ma noqon karto, maxaa yeelay gaalada waa isku mid oo de iyaga shardiga uma yaallo, waxba iskama bedelayo. saa darteed baa inay qaadicu dariiq ay yihiin ayaa maaragtay loogu fasiray. wuxuu yidhi marka sheekhu, huwa qaadicu dariiqu muslimun waa muslim, mukallafun oo la mashaqeeyey oo waajibaad la saaray, muslimka oo lahu isaga ay u sugnaatay shawkatun awood, laa mukhtalisuuna kuwa dafaya ee orod wax kula baxsanaya kuwa ma aha, kuwaasoo yatacaraduuna u banbaxaya liaakhiri qaafilatin safarka aakhirkiisa dambe, yactamiduuna iyagoo cuskanaya alharaba carar. kuwaasi qaadicu dariiq ma aha buuri. marka sheekhu wuxuu inoo sheegayaa xadda qaadicu dariiqa. marka koowaad waa muslim. maxaa baxay gaalku isagu qaadicu dariiq ma noqdo, maxaa yeelay gaalka laba waa midun inuu yahay gaal oo xarbi oo dagaal inaga dhexeeyo, oo kaasi hadda isaga waxaa weeye meelba lagu dayn maayo oo dagaal baa inaga dhexeeya, iyo inuu yahay gaal oo dhimmi ah oo muwaadin oo waddanka degan. kaasina haddii uu arrimaha noocaasa ku kaco qaadicu dariiq noqon maaye nin ballantii buriyey ayuu noqonayaayo sidii gaal xarbi ah ayaaba loola dhaqmayaa, oo waxaa weeye naf iyo maal waxu badbaadaya isaga maba jiro, xoolihiisana waa la khaniimaysan. saa darteed qaadicu dariiqu waa qof muslima marka koowaad, murtadna ma aha. maxaa yeelay murtadku isaga xoolihiisa dee waa fay ee laga dhaxli maayo, oo dadka dowladda muslimiinta ayaa xoolihiisa qaadanaysa. saa darteed qaadicu dariiqu waa qof muslima oo haddana la mashaqeeyey. maxaa baxay sabigii iyo majnuunkii waxay dilaan way magdhabayaan, laakiin xukunka qaadicu dariiqa ah ee inoo soo socda ee goynta ah, xubnaha la goynaya ah, kuwa isaga lagu dabaqi maayo. waxaa lamid a qofkii la dirqiyey oo isaga khiyaarkiisa aan kooxda kula soconine yacni qasab kula socday, kaana isagana xukunkaa yeelan maayo, waa laga kor yeelay. qaadicu dariiqu rag iyo dumar ma kale leh, dumarku xitaa iyagu yacni way ku jiraan. allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed. shuruudda qaadicu dariiqa waxaa kaloo ka mid a inuu awood ay leeyihiin, lahu shawkatun, inay xoog ay leeyihiin ay kaga qaalib noqdaan dadka markaa meesha waddada maraya. maxaa baxay oo sheekhu uu yidhi kuwa oo mukhtalisuunta ee dafaya ee safarka xaggiisa dambe u banbaxaye xagga dabada intay wax ka goostaan deedna yactamiduuna alharab, oo cararka deedna cuskanaya awood aan wax iskaga celin karin. kuwa qaadicu dariiq iyagana lama yidhaah, maxaa yeele kuwaasoo kale safarkay tahay inay isu soo jeedaan, oo iyagoo kuwa noocaasi ay iska dhicin karaan ee cabsi aan ku haynin, inay iyagay tahay hadday wax yeelaan waa iyaga xumaantooda weeye.
qaadicu dariiq kuwaasi ma ahee si kalaa loola dhaqmaya. marka shuruuda ayuu leeyahay qaadicu dariiq. waaladiina kooxdii yaglibuuna ka xoog roonaanaya shirdimatan koox yar biquwatihim awoodooda kaga xoog roonaanaya qudaacun waa qudaacu duruq waa kuwa waddadii gooyey fii xaqihim kooxdaa yar xaqeeda laa liqaafilatin cadiimatin safar weyn. qaafila yacni waxa weeye markao safarku weyn gaadiidka badane awrta ahee isdaba socda ayaa qaafilo la yidhaha. laa liqaafilatin cadiimatin qaafilo bimacnaa safar fara badan markii loo eego qaadicu dariiq kuwaasi ma aha. allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed. halkana sheekhu muxuu inoogu sheegayaa qaadicu dariiqu waa arrin oo nisbi ah. waxaa laga yaabaa dadku markii koox loo eego qaadicu dariiq inay noqdaan, markii koox kale loo eegana qaadicu dariiq inayna noqonin. taa yacni ayaa dhici karta oo waa arrin oo nisbi ah weeyaan qaadicu dariiqnimadu. saa darteed ayaa sheekhu wuxuu yidhi nimanka qaadicu dariiqa ah hadday ku xoog roonaanayaan koox yar oo safara. waaladiina yaglibuuna shirdimatan biquwatihim, yacni shirdimatan waa koox yar oo safaroo waddo maraysa. hadday ka xoog roonaanayaan laakiin qaafilo ayna ka xoog roonaan karin oo awoodooda ayn kaga xoog roonaan karin, kooxdaa yar marka loo eego qaadicu dariiq bay noqonayaan. maxaa yeelay shuruudii baa laga hayaa. laakiin qaafilada faraha badan oo kolonyada faraha badan ee isla socota, kuwaas ayna ka xoog roonaan karin marka loo eego qaadicu dariiq noqon mahayaan. maxaa yeelay hadday wax ka qaataan waa iyaga ayaa dee taqsiir sameeyey qaafiladu, maadaamayna awood aynan la dheerayn. kaasaa waxaa la yidhi oo qaafiladu ilaan inta badan waxaa laga yaabaa inayn madax lahayn, nin walba awrkiisa ama gaadhigiisu iska wataa. laakiin nimankan qaadicu dariiqa ah inta badan waa niman habaysan oo kala amar qaato oo marka miyayna dhici karin qaafilada nafteeda intay dhinac ka soo galaan inay deedna ayna isugu imanin oo dee nin walba awrkiisi iyo gaadhigiisa uu haysto deedna ay intay meel ku habsadaan ay ka xoog roonaadaan miyay dhici karin? way dhici kartaa. markaa qaadicu dariiq bay noqonaysaa. marka iyada noocaasa qaadicu dariiq hadday bilquwati kaga xoog roonaadaan markaa shuruudii baa laga hayaayo qaadicu dariiq ayay noqonayaan wey. waxaysu meel yalxaqu uu soo haleelaya safarka gawthun gargaar laysa ma aha nimankaasi biqudaacin qaadicu dariiq ma aha. wa faqdul gawthi gargaarka waayidiisu yakuunu wuu noqdaa lilbucdi fogaansho meeshii la deganaa safarku uu ka fog yahay, ow lidacfin ama tabardarri dowladda iyo magaalada ay u dhow yihiin ku sugan, taana yacni wuu noqon karaa. allahuma salli calaa muxamed. nimankan oo qaadicu dariiqee wax dhacaya haddii uu gargaar soo haleelayo qaafilada oo hadday qayliyaan oo naga soo gaadhay ay yidhaahdaan ama xabada ay ridaan, haddii laga soo gaadhayo oo gargaarka uu soo haleelayo gurmad uu u iman karayo, waxaysu yalxaqu gawthun, kuwaasi qaadicu dariiq nimankaa iyaga ee markaa meeshaa jooga ma noqonayaan. maxaa yeelay kol hadduu gurmad uu soo haleelayo oo ayna ka xoog roonaan karin dee markaa ilaan gurmadku markuu yimaado kama xoog roonaan karaan, markaa qaadicu dariiq ma noqonayaan, wax kaley noqonayaan. xugun kale niman wax dhacayn bay noqonayaan. laakiin xukunka soo socda ilaan qaadicu dariiqu waxa weeye waa niman awood leh oon la iska celin karin oo deedna safarkii say doonaan ka yeelaya ayaa xukunka adag ee inoo soo socda ayaa maaragtay ayaa la marinaya. marka kuwaas gargaarku intuu soo haleelaya wax laga qaban karo qaadicu dariiq yacni ma noqonayo. oo yacni waxay dilaan way magdhabayaan, qisaaskii wuu ku waajibayaa. laakiin qaadicu dariiqu xugun gaaroo adag buu leeyahay, marka xukunkaasi ma fuulaya. saasaa laga wadaa. allahuma salli calaa muxamed. marka gargaarka waayidiisu wa faqdul gawthi, gargaarka oo la waayo wuxuu noqon karaa lilbucdi, safarku inuu ka fog yahay meesha la degan yahay iyo meesha dowladdu joogto, ow lidacfin ama tabardarri baa jirto oo waxa weeye meesha la degan yahay oo u dhowdahay dee dadkiibaa iska tabar daran oon iska celin karin nimankaa, ama dowladdiibaaba yani yaa tabar daran.
markaasoo dowladdii yani awoodda lahayd baa ka fog, dadka u dhowna way tabardaran yihiin, markaasoo kale qaadicu dariiq ayay noqonayaan. allahuma salli calaa maxamed. oo qowdku una soo haleelin gargaarku. waqad yaglibuuna inay xoog roonaadaan baa la arkaa nimankii waddada istaagay. walxaalatu haadihi iyadoo xaaladu ay sidan tahay, oo yacni gargaarkii uu ka fog yahay ama tabardarre ay jirto fii beledin beled, iska badaa waddo magaalo inay ka xoog roonaadaan baa la arkaa dadkii. oo fahum iyagu qudaacun qaadicu dariiq weeye oo xukunkiisa ayaa la marinayaa. marka meeshan waxay noo sheegayaa sheekhu, haddii uu qowdkii gargaarkii hadduu fog yahay ama tabardarri ay jirto, xaalada iyada ah yani xaalada walxaalatu haadihi waxaa laga wadaa xaalada oo suldaanku uu daciif yahay ama uu fog yahay, gargaarkii uu fog yahay oo meesha wax ka dhacayaan uu ka fog yahay, waxaa laga yaabaa inay magaalo ka xoog roonaadaan nimankii, oo magaaladu ayna iska celin karinba, oo iyagoo hubaysan intay magaalo tuule intay soo galaan deedna waxay doonaan ay ku sameeyaan. fahum qudaacun nimanka iyagaa markaa qaadicu dariiq bay noqonayaan, si nin waddo istaagay oo kale ayay noqonayaan, bal iyagaaba ka daran oo dembigoodu uu ka wen yahay. maxaa yeelay waddada marka dadku meel cidla ay aadayaan dee waxa weeye way ku talagalaan oo waa meel laga baqayo. laakiin nin magaalo tuule iska jooga oo nabad iska jooga, hadday intay si uun gaadhi uun intay kusoo siibtaan ay hareeraha ka maraan, taas dee waxa weeye waa arrin ka daran weye. marka waa qaadicu dariiqoo xukunka soo socdae adag ee qaadicu dariiqa waa la marinayaa oo way leeyihiin nimanka iyaga. allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed. walow calima alimaamu imaamku hadduu ogaado, imaamka muslimiintu waxaana laga wadaa ninka madaxda ah, qowman qolo qoomka oo yukhiifuuna cabsi gelinaya addariiqa waddada, walam ya'khuduu oo aan qaadanaynin maalan xoolo, walaa nafsan nafna aan waxyeelaynin, casarahum wuu ganaaxaa bixabsin xidhid iyo wagayrihi xabsi gayrkii oo garaac la garaaco iyo ayuu ku ganaaxaa imaamku. wa idaa akhada hadduu qaato alqaadicu kii waddada gooyey nisaaba sariqati sariqada xatooyada nisaabkeedii gacanta loo goyn jiray oo rubucu diinaar ahaa, shilin 4 meelood loo dhigoo dahaba, rubicii hadday waddada intay istaagaan qaataan, qadaca wuu goynayaa imaamku yaddahu gacantiisa alyumnaa ee midigta, wa rijlahu alyusraa iyo lugtiisa bidixdaha marjag laga wada siin. fa in caada hadduu ku noqdo mar labaad isagoo caynkaasa, fa yusraahu gacanta bidix, fa yusraahu wa yumnaahu yacni waxa weeye gacantiisa bidix iyo lugtiisa midig baa haddana la goyn. wa in qatala nimankii haddaba hadday wax dilaan, qutila waa la dilayaa xatman waajib baa loo dilay, bimacnaa dil oo aan la cafin karin. wa in qatala hadduu wax dila kii waddada istaagay, wa akhada maalan xoolana uu qaato uu isku darsada labada, qutila waa la dili, huma suliba waa la salbin. suliba waa la salbin. allahuma salli calaa muxamed. 3 maalmood. huma yunazalu markaasaa geedka laga dejin. waqiila waxaa la yidhi yabqaa wuu saaraan halkaa meydkiisu xataa yasiila ilaa uu ka qulqulo sadiiduhu isaga mililkiisa ama carunkiisa, bimacnaa dhaacaanka yacni uraya ee dhiig iyo dhaacaanka isku jiray jidhkiisa ilaa uu ka qulqulo. wa fii qowlin yuslabu waa la salbin qaliilan in yar, huma yunazalu markaasaa geedka laga dejin, fa yuqtalu markaasaa la dili. hadda halkaa masalada ku jooji, waa masalo dheer weeye. allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed. haddaba nimankii qaadicu dariiq ahaa aan sheegaynay, oo niman muslima oo mukallafa oo awood loo abaabulan oo waddada istaagoo dadka ka xoog roonaanaya, qaadicu dariiq kuwaas baa la yidhaah. haddaba kuwaa markay waddada istaagaan, haddii dowladdu ay ogaato, hadday waddada un cabsi gelinayaan, yacnaa waxba ma dhacaan waxna ma dilaan, waddada intay istaagaan ayay dadka qashqashaan. marka iyada ah imaamku markuu ogaado arrintaa inay sameeyaan, ma alla ayn qaadan xoolana ayna dilin, casarahum waa la soo qabanaya. markaasaa xukunkoodu waa tacsiir, markaa waa waajib in la tacsiiro. wixii laakiin dowladdu ay u garato oo kolba cabsigelintooda wuxu dhigma ah ayaa la tacsiirayaa.
bixabsin wakayri, ama waa la xidhi oo intaasoo bilood ama intaasoo sanaa loo jari, ama meehe wax kale oo waaba la garaaci oo wax kale ayaa lagu samayn wixii yacni dowladdu u garata. maxaa yeelay aayadda ayaa sidaa sheegaysa oo ow yunfowda aayadda ku jirta ayaa waxaa lagu fasiray xabsi in la xidho, taayahana ayaa lagu fasiray. allahuma salli calaa muxamed. haddaba haddii nimankii qaadicu dariiqa ahaa ay xoolo qaataan, waa la eegayaa xoolaha inay gaadhaan nisaabu sariqa. qofku markuu waxado xoolihii gacanta loo goyn jiro rubucu diinaara inay dhan yihiin iyo inayna dhannayn, labadaasaa loo kala qaadi. allahuma salli calaa muxamed. haddii haddaba rubucu diinaar ay dhan yihiin, qaadicu dariiqu wuxuu qaatay, allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed, gacantiisa midig ayaa la goynayaa oo maalka dartii loo goyn. wa rijlahu alyusra, lugta bidixna waa la raacinoo lilmuxaarabati, xarbahan qaadicu dariiqnimadan uu muslimiintii la xarbiye waddada isu taagay xaddeedii weeye. gacanta la goyn ee midigtaana waa xaddu sariqadii. labadaasaa la isugu darayaa sida aayaddu sheegtay, markaasaa labadaba mar qura yacni ayaa la goynaya. haddii mar labaad uu ku noqdo oo uu ku soo noqdo oo isagoo caynkaas hadday dhacdaba fa yusraahu wa yumnaahu, haddana midigta iyo bidixda kale soo hadhay ayaa la goyn. maxaa yeelay waa lil aayati, aayadda ayaa sidaa sheegaysa suuratu lmaa-ida. allahuma salli calaa muxamed. haddaba hadday wax dilaan, waa in qatala, qaadicu dariiqii hadduu wax dilo qisaas baa horta yaa ku hadday wax dilaan dil oo qisaas waajibinaya hadday geystaan, hadduu doono dilkaasi dhaawac ay geysteen oo loo dhinto markii dambe haba noqdee, dil noocaasa hadday geystaan qutila xatman, yacni imaamku nimankaa wuu laynayaa. xatman maxaa laga wadaa? waajibnimo, yacni lama cafin karo. qofka oo qof kasu dila, yacni qofkii dhaxalkiisa lahaa mag buu ka qaadan karaa oo wuu cafin karaa, qisaas mag buu ku cafin karaa. laakiin qaadicu dariiqa maya, isaga yacni waxaa weeye lama cafin karayo. qutila xatman, waa la dilaya. maxaa yeelay muxaarabada waxaan u geystay qisaasba ha waajibiyo qof kas ha u dile, laakiin muxaarabada xarbahan uu sameeyey oo waddadii uu istaagay ayaa waxay faa'iideynaysaa ziyaado kaloo aan ka ahayn in laga dhigo qatliga taxatum mid oo yacni waajibayo aan la cafin karinna ma jiro. ileen haddii kale wuxuu la mid ahaanayaa dadka kale caadigee wax dilay ayuu la mid noqonayaa. marka waa la dilayaa, imaamka ayaana dilaya oo xaqullaahi yacni ayaa loo dilayaa. oo qofkii ay dileen dadkii dhaxalkiisa laha hadday cafiyaan xitaa ma dhacayo, dowladdu yacni kurka inay ka jarto wey. haddaba hadday laba isku daraan, waxbay dileen, wa akhada maalan, xoolana way qaateen, maalkaasoo nisaabu sariqa dhan oo rubucu diinaar dhan. marka waa la dilayaa, uma suliba, markaasaa haddana la salbinaya. allahuma salli. hadday labadaa isku daraan, waxbay dileen, xoolana way qaateen, yacni dil oo naf la gooye weeye. hadda la soco. wa in qatala wa akhada maalan, qaadicu dariiqi marka waa la dilayaa. uma suliba, markii la dilay kabacdi inta la dhaqo oo la kanfo oo lagu tukada, ilaan waa muslime, ayaa isagoo kafankiisa ku jira, uma suliba, markaasaa la salbinaya. salbintu waxaa weeye yacni geed weyn oo tiira ayaa meesha lasoo dhigi, markaasaa isaga sidaa loo saaraya, sida saliibkan bahalkan gaaladu ay wataan oo kale ayaa geedkiioo sidana ayaa isaga saa loo saarayaa, deedna oo qaarkiina xaggaa u dhacaya, qaarna sida saliib oo kale ay u noqdaan. suliba yacni saasaa loogu balladhayaa, sida allahuma salli calaa muxamed, sida saliibkii oo kale, si ay ugu noqoto ziyaadatu tacdiib, si ay ugu noqoto oo mar dambe uuna waxaasoo kale u dhicin. waxaana fiican arrintaa in lagu sameeyo meeshii ay ku geysteen dhibka, haddii ay tahay meel dad kale ay soo marayaan oo lagu waana qaadanayo. haddii kaloo meel iska duur oo cidina ayna arkaynin ay tahay, meeshii kale markaa u dhowow dad joogo oo si loogu waana qaato oo dadku ay isu gaadhsiiyaan oo hadda kadib looga badbaado ninkii shar lahoo dhan sharkiisa ayaa lagu samaynaya. 3 maalmood bay sida ahaanayaan iyo habeenadooda, waa waajib, si xaalkiisu uu u shuroobo, meel walba loo gaadhsiiyo oo la yidhaahdo meeshii ayaa nimankii qaafilada dhexda u galee dadka laayay xoolahana dhacay
halkaasaa weli ayuu meydkoodii ninkii doonayay inuu soo arka halkaasay ayay yaalaan si loo yidha uma yunazalu markaasaa laga dejinayaa laakiin waa haddii aan laga baqin inuu uro ama inuu qarxo oo dabcan ur wuu yeelanayaa meyd meel la dhigay waxaa laga wadaa inuu infijaaro oo qarxo oo dee uu maaragtay kala dilaaco haddii aan laga baqaynin ama haddii laga baqo markaa qabriga horey ayaa loogula cararayaa oo waa la aasayaa qiil wuxuu leeyahay maya halka ha yaalo xataa yasiila sadiiduhu ilaa dhaacaankiisa uu ka qulqulo oo intuu ka dilaaco deedna dhaacaanku qulqulo sadiid waxaa la yidhaha dhiigga iyo biyaha isku jira ee qofku ka dureera kaas yani ayaa la ilaa uu ka dureera yani qowl wuxuu leeyahay maya inta la salbiyo isagoo nool marka horeba ayaa la dejinayaa deedna in yar isagoo nool markaasaa inta laga soo dejiyaa la dilayaa fa yuqtalu uma yunazalu fa yuqtalu maxaa yeelay salbigu waa cuquubo waa ciqaabtan qof dhintay muxuu ka dareemayaa waxba kama dareemayo isagoo nool ninka sidaa ha lagu sameeyo ayuu qiilkanu leeyahay allahuma salli laakiin si qiilkan lama soo naqlinin in qof nool sidaa la yidhi midda kale waa siyaadatu tacdiibna dee qofka kale oo duurka joogo qofka kale oo gaalka ah ayaaban in lagu sameeyo ayna banaanayn oo in waxaa la yidhi xataa xoolaha ayaa waxaa la yidhi markaad wax dilaysaan dilka wanaajiya xoolaha markaad gowracaysaan midida afaysta saa darteed qof nool inta tiir saa loo saaray isagoo nool macquul maaha marka qiilku qowlkani waa daciif fii qowlin yuslabu qaliilan isagoo nool uma yunazalu fa yuqtalu waa daciif weeye oo la qaadan maayo allahuma salli calaa muxamed la qaadan maayo allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed waman acaanahum ninkii u kaalmeeya nimankaa qaadicu dariiqa ah wa kahara badiya jamcahum jamacooda badiya cusira waa la ganaaxi bixabsin xidhid iyo wa tacsiirin tacsiirtu waa xad aan gaadhsiisnayn waxaan u jeedaa waa wax oo xadda nooceeda ah oo laakiin xaddii aan gaadhsiisnayn iyo wagayrihimaa wixii lamida ayaa lagu ganaaxi waqiila waxaa la yidhi yatacayanu waxa wa taqriibin dhiwan kaa xumeeye cusira bixabsin wa taqriibin iyo masaafurin ayaa lagu ganaaxi iyo wagayrihimaa wixii lamida waqiila waxaa la yidhi yatacayanu waxaaba waajibi ataqriibu in la masaafuriyo ilaa xaysu yaraahu meeshii uu ra'yeeyo oo imaamku u arko in nimankaa la geeyo haddaba nimankaa qaadicu dariiqa ah ciddii ku biirta laakiin aan ka mid ahayn iyagu meel bay kasoo duuleen gaadiid bay wateen meeshay yimaadeen kasoo qaad dadkii deegaanka ah qaar ka mid a ayaa deedna u tegay oo jamacoodii badiyey intaana aan ka badinin waxna mayn dilin waxna mayn dhicin dagaalkii mayn ka qeyb gelin laakiin jamicii unbay badiyeen cusira ninkaa waa la ganaaxaya maxaa lagu ganaaxay bixabsin wa taqriibin in la xidho wa taqriibin taasi waa bimacnaa ow waa bixabsin ow taqriibin in la xidho ama la masaafuriyo ayaa lagu ganaaxi iyo wagayrihimaa wixii lamidoo tacsiirta kale haddii la doono jeedal baa loo qaadanayaayo waa la edbinayaa waa la garaahaya sida oo macaasida kaleba yaan uga qiyaasanayna maxaa yeelay macsiyo aan gaadhsiisnayn aan xad lahayn qofku hadduu la yimaado waxaa weeye tacsiirtaana imaamku unbaa eegaya waxa munaasabka ku ah waynoo iman doontaa baab dhan bay leedahay insha allah ilaa xaysu yaraahu baa loo musaafurin meesha imaamku uu arko iyo maslaxadu kolba say keento allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed wa qatlulqaadici ka wax dilay dilkiisa yuqallabu waa la qallibi oo waa la xoog roonaysiin fiihi isaga macna alqisaasi qisaaska macnihiisa wa fii qowlin alxad macna alxad xad macnihiisa ayaa la qallibi facala alawali ka hore oo leh macna alqisaas oo raajixa haddaan qabanno laa yuqtalu la dili maayo biwaladihi ilmihiisa wa dimiyihin iyo gaaloo dimi ah loo dili maayo allahuma salli calaa maxamed walow maata hadduu dhintana fadiyatun mag baa yacni ayaa waajibi
allahuma salli calaa maxamed marka kan kadaato oo qaadica ah isaga dilkiisu hadduu wax dilo waa xatmi baynu nidhi waa in la dilaynu nidhi marka saa darteed waxaa la qalibayaa dhinaca qisaasta maxaa yeelay allahuma salli calaa maxamed hadday laba meel isugu yimaadaan xaqul aadami iyo xaqullaahi hadday isugu yimaadaan waxaa la qalibaa dhinaca oo xaqul aadamiga maxaa yeelay xaqul aadamigu wuxuu ku dhisan yahay calaa dayq cidhiidhi xaqullaahigana waa waasac oo maaragtay cafis ayaa geli kara saa darteed qatligan ma qisaas baa lagu tilmaami mise waxaa lagu tilmaamayaa allahuma salli calaa maxamed xad marka qisaas baa la qalibayaa sida raajixa ah marka haddii aan dhahno xagga dhinaca xadda ha la qalibo waxay ka dhigan tahay cafigiisu marka yacni ma asaxaya ayay ka dhigan tahay oo imaamka ayaa oofsanay haddaba facalal awali midka horeo raajixa ah kow kafaara ka waajibi qofku markuu wax dilo isagoo qaadicu dariiqa midda kale laa yuqtalu biwaladihi qaadicu dariiqu waxaanay dileen ee xabaddu ay ku dhacday ilmihiisii hadduu yahay wadimiyin waxa dhintay ee qaafilada la socday hadduu gaal yahay markaana loo dili maayo markaan eegno dhinaca qisaaska maxaa yeelay midna dee asal buu u yahay oo asal iyo farac laysuma dili jirin oo asalka lama dili jirin faraca waa gooniye dhimiga iyo muslimkana kafaa aan ka dhaxaynin saa darteed loo dili maayo allahuma salli ale maxaa dhacaysa mag baa waajibaysa hadduu qof xora uu yahay mag baa waajibi haddii uu addoon yahay faraca la dilo ilmihiisa la dilay hadduu addoon yahay ama dhimigu uu addoon yahayna qiimihiisa ayaa waajibi walow maata haddaba qaatilkii hadduu dhinto isagoon waxba dilin walow maata qaatilkii fadiyatun mag baa waajibaysa allahuma salli calaa maxamed oo maqtuulkii u waajibi yacni waa sidee qaadicu dariiqii baa waddada istaagoo qof bay dileen waa la soo qabtay qaadicu dariiqii qofka dilay intaan weli isagii la dilin qaadicu dariiqu qof keliyuu noqon karaa hadduu ka xoog roon yahay kasoo qaad hadda xilligan aan joogno oo kale dadkii ma hubaysna isagana hub buu haystaa waddadiibuu istaagay waa nin keliya xukunka qaadicu dariiqa ayaa ku fulaya ee shardi maaha inay koox yihiin xataa dumar buu noqon karaa marka qofkii qaadicu dariiq ahaabaa wax dilay markuu wax dilay isagoo weli xukunkii aan lagu fulinin ayuu dhintay isagii walow maata qaatilkii hadduu dhinto qaadicu dariiqii wax dilay isagoon la dilin hadduu dhinto fadiyatun mag baa waajibi qofkii la dilay mag baa u waajibi oo qaadicu dariiqa maalkiisa ayay ka waajibi hadduu qofka la dilay xor ahaa hadduu addoon ahaana qiimihiisii baa waajibi oo kaa wax dilay xoolihiisa ayaa laga qaadayaa marka sida raajixa inaan dhinaca qisaaska aan eegna walow qatala hadduu dilo masaladii aan weli daba soconnaaye qaadicu dariiqi jamcan jamac hadduu dilo qutila waa loo dili biwaaxidin mid baa loo dili welilbaaqiina inta soo hadhayna waxaa u sugnaaday diyaatun mago ayaa u sugnaato ay qaadanayaan ninkii qaadicu dariiq ahaa 3 nin buu kow kaga siiyey intuu waddada istaagay haddii aan dhahno waa qisaas waxa weeye 3 nin waa la eegi inuu muratab u dilay oo ay kala horreeyeen dhimanshadoodu iyo in uu mar qura ay wada dhinteen hadduu maaragtay sidaan horey usoo marnay ay kala horreeyeen midkii ugu horreeyaa loo dili oo loo qisaasay labada soo hadhayna magtoodii baa laga qaaday oo xoolihiisa ayaa maaragtay ayaa laga qaadayaa hadday isku mar wada dhinteenna oon la ogeyn say u kala horreeyeenna waa loo qori tuurayaa kii qori tuurka usoo baxa baa loo dili oo qisaas kuwa kalena yacni mag ayay xaq yacnaya u yeelanayaan walow cafaa hadduu cafiyo weliyuhu qofka la dilay weligiisu bimaalin hadduu ku cafiyo wajaba wuu waajibayaa maalkaasi wasaqada alqisaasu qisaaskiina wuu dhici wayuqtalu waa la dili xaddan xad baana loo dili ninkii tana waa sidee qaadicu dariiqii baa wax dilay kas waxu dilay kama ileen maba noqoto waddaduu istaagaye qaadicu dariiqi markuu wax dilay ninkii uu dilay weligiisii ninkii dhaxalkiisa lahaa ayaa wuxuu yidhi anigu waana cafiyey qisaaskii mag baan ku cafiyey ayuu yidhi waa sax waxa weeye wajaba
low cafaa weliyuhu bimaalin wajaba maalkaasi wuu waajibi wasaqada alqisaasu qisaaskii uu ku lahaana wuu dhacayaa laakiin waxaan dhacaynin baa jira maxaan dhacaynin wayuqtalu xaddan maalka xoolihiisa ayaa laga siinayaa kolba intay u gaadho ayaa loo moora duugi oo loo siinayaa wayuqtalu waana la dili qaadicu dariiqi xaddan xaddii oo qaadicu dariiqnimada qisaaskii tayadii uu ka badbaaday ila meesha laba xaq baa isugu yimid xaqullaahi xaqul aadami qaadicu dariiqnimadu waa xaqullaahi ilan muslimiintiiba yaa la dhibaya qofkan la dilayna dee qofkii uu ka dhintay baa isna xaq loo siiyey labadaa xaq xaqullaahi iyo xaqul aadami baa isugu yimid markaa kani hadduu ma ku cafiyey waa magti in la siiyo wajaba maalkaasi wuu waajibay qisaaskiina wuu dhacay laakiin dhinacii kale laga soo wareegiyo wayuqtalu xaddan xad baa loo dilayaa ninkaa isaga ah allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed walow qatala hadduu dilo qaadicu dariiqi bimuthaqalin shay culus buu wax ku dilay ow biqadci cudwin xubin goyntii buu wax ku dilay fucila bihi isagana waa lagu samayn mithluhu sidaasoo kale maxaa yeelay qofkii qaadicu dariiqa hadduu wax culus wax ku dilo dhagax oo kale ama budh oo kale ayuu wax ku dilay ow biqadci cudwin qofka markuu dilayo xubin buu ka gooyey markaasuu qofkii dhintay fucila bihi mithluhu sidii oo kale ayaa lagu samaynayaa isagana allahuma salli calaa muxamed fucila bihi mithluhu sidii oo kalea lagu samaynayaa maxaa yeelay waa inaga inidhi dhinaca qisaaska ayaa la qallibayaa ayaa la xoog roonaysiinayaa marka qisaasku haddee saasuu keenaya sidii oo kale maadaama naftiisa in la dila ay tahay waxa weeye xubinkii baa laga goynaya sidii aan soo marnay hadduu dhinto wanaag haddii kalena waa la israacinaya markaasaa la dilaya waa la dilaya allahuma salli laakiin culimo badan ba waxay leeyihiin maya sidaa lagu samayn maayo waa in seefun lagu dila ninkan sidaasayna culimo badan yani ayay u gargaareen inaan yani wuxuu sameeyey aan lagu samaynina maadaama salbin iyo waxyaalo dheeraada ay u yaalaan in isaga seefun yani lagu dilo saas ayay culimo badani ayay rajaxeen walow jaraxa hadduu dhaawac geysto qaadicu dariiqi oo fandamala uu bogsado dhaawicii lam yataxatam ma waajibo qisaasun qisaas fil adhari qawi haddii aan qabanno ninkii qaadicu dariiqa ahaa ayaa wuxuu sameeyey dhaawac buu geystay dhaawacoo qisaas ka waajibi maalan nin buu gacanta ka gooyey fandamala markaasuu bogsaday lam yataxatam qisaasun qisaas xubinkaa isaga ah kama waajibo fil adhari qawi haddii aan qabanno allahuma salli calaa muxamed yacno dil meeshii ma dhicin allahuma salli calaa muxamed walow jaraxa qaadicu dariiqi hadduu dhaawaco qof buu dhaawacay dhaawac oo xad waajibinaya gacan buu ka gooyey isagoo maalan intuu waddadii galeen xabadii gacan bay la tagtay gacan buu ka gooyey ama seef buu ku gooyey fandamala wuu bogsaday qofkii oo uma dhimanin dil ma dhicin lam yataxatam qisaasun fil adhari yacni gacantaa in loo qisaasa waajib ma noqonayso maxaa yeelay taxatumku qatliga ayuu gooni ku yahay markuu wax dilo qaadicu dariiqa markaasaa dilkiisu taxatumaya oo marna uuna dhacaynin oo qolada qisaasku hadday cafido xagga dowladda yaa loo dilayaa amaa dil wixii kasoo hadhay oo gacan la gooyey ah oo deedna qofkii uu bogsaday go-on inta laga gooyey qofkii uu bogsado wax dhimasho ayn jirin qisaaskaasi hadday dhahaan maal baan ku cafinay yacni inay qisaastaanna way heli karaan inay maal ku cafiyaanna way heli karaan hadday maal ku cafiyaan marka dowladdu ma goynayso wax goyn la yidhaha ma imanayso maxaa yeelay lianna taxatuma tagliidun lixaqi illaahi tacaala fakhtasa binnafsi kalkafaarati sida kafaaraduba qofka marka la dilo un ay uga waajibi haddii qof gacan laga gooyo qofkii gacanta ka gooyey kafaara ayna ugu waajibaynin taxatumka yacni waajib noqoshada qofka qaadicu dariiqa ah dilka unbay la socotaa markuu wax dilo ee dil wixii ka sokeeya maya wa tasqudu way dhici cuquubaatun ciqaabta oo takhusu lqaadica ama takhtasu lqaadica qaadicu dariiqa gooni ku ah bitowbatin towbay ku dhici
towbada oo qabla alqudrati inta aan la awoodin calayhi isaga in gacanta lagu dhigin ka hor ah, laa bacdahaa bacda alqudrati markii la awoodo gacanta lagu dhigo towbadu towbad keeno waxba ma tarayso cala madhabi qawi haddii aan qabanno. qaadicu dariiqii intaan gacanta lagu dhigin hadduu towbad keeno, towbadaasi waxay ka ridaysaa wixii qaadicu dariiqnimada gooni ku ahaa oo cuquubo ah. waxaa ka mid a dilka waajibayeen la cafin karin, waxaa ka mid a salbintii oo geedka lagu salbinayay ee saa maaragtay sidii saliibka oo kale loo saarayay, lugta iyo gacanta isweydaarka ee la goynayo, intaasoo dhanba waa qaadicu dariiqa ciqaabta goonida u ah. taasi markaa way ka dhacaysaa. ama wixii kale qaadicu dariiqnimada aan gooni ku ahayn oo qisaastii caadiga ahayd iyo xoolihii u dhacay magdhowgoodii iyo waxaasoo dhan iyagu waa gooni oo marnaba ma dhacayaan. maxaa yeelay aayadda ayaa ina tusinaysa, waa lil aayati laa bacdaha bacda alqudrati, markii gacanta lagu dhigay ka bacdi hadduu yidhaah wixii waan ka toobad keenay, taasi kama ridayso ciqaabtii cala almadhabi qawi haddii aan qabanno. maxaa yeelay waa limafhuumil aayati, aayadda ayaa laga fahmayaa mafhuumkeeda, manduuqeeda mooyeen mafhuumkeeda ayaa sidaa ina tusinaya. towbadaasi maa baynahu wa bayna allah, isagiiyo ilaahay dembigii u dhexeeyey uu sameeyey kaa waxbay uga taraysaa, laakiin tan kale waxba uga tari mayso. maxaa yeelay tuhmaa jirta. saa darteed ayaa aayadda waxaa laga fahmayaa inayna ka dhacaynin ciqaabtaasi oo qaadicu dariiqnimada gooni ku ah, inayna towbadaas oo markii gacanta lagu dhigay kadiba ayna ridaynin. saasay aayaddu ina tusinaysaa. walaa tasqudu ma dhacdo saa'iru lxuduudi, xadadka baaqigoodii. qaadicu dariiq baan ka hadalnay intii soo hadhay, saa'irku waa bimacnaa baaqi. walaa tasqudu ma dhacdo saa'iru lxuduudi, xuduudda baaqigeedii ama xuduudda oo dhanba dheh, bihaa bitowbati, towba kuma dhacdo. qofkii hadduu toobad keeno, maalan wuu zinaystay, waxbuu haday, khamruu cabbay, markaasuu towbad keenay, towbadaasi xaddii kama ridayso. ama markii oo qaadiga loo sheegay ha noqoto, ama intaan qaadiga weli loo sheeginba in la dacweyninba ha noqoto, yani waxa weeye xaddii ma dhacayso. allahuma salli calaa muxamed. xaddii yani towbadaa kuma dhacayso. maxaa yeelay liannahu sala allahu calayhi wasalam suubanuhu xadda man dahara towbatuhu, wuxuu xaday qof towbadiisii ay muuqato. bal man akhbara canhaa bihaa bacda qatlihaa, mid markii la dilay iyada oo xaddii laga oofiyey ka bacdi isagu uu sheegay towbadeeda inay toobad keentay ayaaba jirtay. marka saa darteed towbadu yani xaddii ma ridaysa. fil adhari baan nidhi, muqaabilka adharka yani culimo badan baa u gargaaray oo aayaad iyo axaadiid fara badan ayaa waxay tusinaysaa towbadu inay dembiga kor yeelaysa min aslihi, inay ka kor yeelayso oo ay ridayso. marka culimo badan ayaa muqaabilka qabsaday, laakiin sida la xukumaya qawigaa sidaa weyn. laakiin waxaa laga soo reebayaa taariku salaadka. taariku salaadkii haddii uu toobad keeno, towbadaasi waxay ridaysaa xaddii. ama labada qowlba markii laysku daro, adharka iyo muqaabilkiisuba, taariku salaadku haddii uu toobad keeno, yani towbadaasi waxay ridaysaa xaddii isaga ku waajibtay ayay ridaysaa. allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed. laakiin xaddii kama ridaysaan nidhi, walaa tasqudu saa'iru lxuduudi bihaa bitowbati fi ladhari. amaa fi maa baynahu wa bayna allahi tacaala, addoonka iyo ilaahay wixii u dhexeeya haddii towbadiisu ay sax tahay, yani waxa weeye xaddii way ka dhacaysaa. haddii uu towbad oo sax ah oo shuruudeedii iyo arkaanteediile uu la yimaado, taa iyada way ka dhacaysaa. ee xagga waxaa laga hadlayaa xukunka iyo qaadiga, taa unbaa ayaa laga hadlayaa.
wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.